war degdega magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ka socda dagaal aad u xoogan oo u dhaxeeya ciidamo taabacsan mucaaradka iyo kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana gudaha magaalada haatan laga maqlayaa rasaas xoogan iyadoo qaybo kamid ah magaalada ay uu markaasi ku fiday dagaalka sida ay noo xaqiijiyeen qaar kamid ah shacabka ku sugan magaalada Baydhabo waxaa la isku adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan ee culus taasoo sare u sii qaaday cabsida iyo walwalka muddooyinkii u dambeeyay ay wajahayeen dadka ku nool magaalada Baydhabo inkastoo badi dadkii deegaanka ay qaxeen haddana waxaa markaasi walaac hor leh markaasi uu soo wajahay dadka ku haray magaalada ilaa ay hadda lama hayo wax faahfaahin rasmi ah oo cadeynayso cidda sida tooska ah markaasi ugu lugla dagaalkan balse warar hordhaca oo helna waxay tilmaamayaan inuu u dhaxeeyo ciidamo taabacsan mucaaradka iyo sidoo kale kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xaaladda magaalada ayaa haatan qasan iyadoo markaasi la filayo in dhinaca Koonfur Galbeed uu ka soo baxo faahfaahin rasmi ah oo ku aadan dagaalkan caawa markaasi fiidkii ka qarxay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Baydhabo muddooyinkii u dambeeyay waxa ay la circiireysay xiisad colaadeed oo markaasi u dhaxeysay ciidamo markaasi taabacsan mucaaradka Cabdicasiis Laftagareen iyo sidoo kale ciidamada Koonfur Galbeed oo markaasi heegan buuxa la geliyay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo goordhaweed qoraal soo saaray waxa uu cambaareeyay tallaabada Koonfur Galbeed maanta ay qaaday ee ay safarka kaga hor istaagtay gudoomiyaha iyo wafdi uu hogaaminayo oo halkaasi tagi lahaa waxa uu markaasi Laftagareen ku eedeeyay in hor istaag cad uu ku sameeyay wafdiga markaasi gudoomiyaha isla markaana uu ka warhayay socdaalkiisa waxa uu sidoo kale uga digay Laftagareen in arrimaha masiiriga ah ee reer Koonfur Galbeed kaligiis uusan isku koobin sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya wafdi wasiir ah ay u dirtay degmada Buurhakaba halkaas oo maanta gelinkii dambe ay gaareen waxaana markaasi wafdigaasi diyaarad khaas ah ka qaaday Muqdisho ay Buurhakaba geysay isla markaana waxa ay ku dhawaaqeen in ay halkaasi u tageen dardargelinta howlaha markaasi ku aadan sidii Koonfur Galbeed gacanta looga qaban lahaa Cabdicasiis Laftagareen waxaana markaasi qorshuhu yahay in duulaan ballaaran lagu qaado magaalada Baydhabo isla markaana ay kala wareegaan Cabdicasiis Laftagareen dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed khilaafkooda tan iyo markii uu soo shaabaxay ayaa waxa markaasi dawladdu ay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay kamid tahay in ciidamo ay ku daabushay magaalada Baraawe sidoo kalena dawladda federaalka ay wasiiro markaasi iyo xildhibaano ay u dirtay degmada Buurhakaba iyo sidoo kale degmada Qansax Dheere taasoo ay uga gol leedahay in ay ku dardargeliso howlaha markaasi ay ka leedahay deegaanada Koonfur Galbeed oo ay ugu horeyso in meesha la dhaafiyo Cabdicasiis Laftagareen oo dhowr jeer markaasi ku goodiyay in ay iska difaaci doonaan cid kasta oo duulaan ku ah jiritaanka Koonfur Galbeed ayaa hadda waxaa laga dhursugayaa warka ay ka soo saaraan dagaalkan xoogan ee ka bilowday magaalada Baydhabo afurkii kadib wararkii ugu dambeeyay hadda waxa ay tilmaamayaan in markaasi aanu helayno in xaaladda magaalada ay aad u qasan tahay isla markaana wax faahfaahin rasmi ah aan la heli karin dagaalkan ayaa sidoo kale ka socdo aaga markaasi loo yaqaano xaafadda markaasi suuqa xoolaha waxaana markaa muuqaalo baraha bulshada ku faafay ay muujinayaan dad kala cararaya oo markaasi ka gabanaya rasaasta xoogan ee dhinacyadu ay markaasi isweedaarsanayaan xoga hordhaca oo hadda soo baxaya waxa ay tilmaamayaan in laga itaal roonaaday ciidanka badbaadada Koonfur Galbeed ee markaasi taabacsan mucaaradka iyadoo ay haatan dagaalkan ku gacan sareeyaan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya wixii warar ee ku soo kordhay dagaalkan ka soo cusboonaaday magaalada Baydhabo halkan ayaa si toos ah uga socon doontaan daawadayaal